suldaanka Samaroon gada bulsi ugu weyn Suldaan Suleymaan alla weyn qofka saddexaad waxa weeyaan boqor buur madow walaalkay boqor buur madow oo qabiilada dhexe ama isaaqa ka soo jeeda oo habar jeclaa oo Dubai ku nool walaalkay qaali oo hawshan intaanan labadeedu wada hadal isagu isxilqaamay oo hawshan galay oo caaqan intuu uu ka dhiidiyay ayuu dadku garanaya u diray waa loogu yeedhay way wada hadleen wuxuu yiri uu la sheekaystay bal warkaagiisii sidee wax u dhaceen sidee wax u jiraan uu u waramay wuxuu u qirtay kuma been fariimayo boqorku nool yahay waa marxatiga nool wuxuu yiri gabadhayda waan ku khaldamay waa xaaskeygii waa oorideydii waa marwadeydii qaladka aan sameeyay marada igu celi maartay magtana iga bixi mooradana iga bixi xaal marintana iga bixi kolka isagu wuxuu ku tala galay boqor buur madow inuu gacmo geel jiray hoos baa loo dhaqaayo inteena ceebtu ama sii weynaan ama aanay isku tuurtuur noqon inuu isagu dusha u rito oo hawsha ka odayeeyo waa sidii dhaqanna lagu arki jiray qof damiir leh ama qof ummad maartay u ah oo qaal boqor ama suldaan ama ugaas u ah falkii u yeel lahaa ayuu ku dhaqaaqay qoladii jilibkii ninka caaqani ka soo jeeday baa tiri ninkani wuxuu nagu doonanayaa magac annaga isku filan reerkayga inuu baabiyo rabaa annaga ninkan inankaygu yahay hawshiisa faraha nooga qaad arrintii dhanka kale loo rogay kadib annaga wada hadalay wuxuu yiri farxaanow waji kale baashi yeelatay raggii waxay yiraahdeen baashan faraha nooga qaad hayo marka annaga isku filan jilib ahaan ayaan kula xaalaynaa Samaroon ama gada bulsi ama Bahabar Cabdalle ama Makaahil adeeraday ama tolkay qalbi wanaagsanadooda iyo dadnimadooda dhibanayaal iyagoo ah bay buuramaynta ka yimaadeen bay Hargeysa u yimaadeen sidii la arki jiray geed hoostii inaan maartay meel la fadhiisto la garamo oo wixii saxarka laga qaado oo de sidii dhaqankii Soomaaliya waxaan jiray la soo fadhiisto markay la fadhiisteen ay malaha markana la fadhiisteen mar saddexaadkii lagu kala bixi lahaa oo yiraahdeen cadayma la kaalay oo wixii inaguna hadweetay anaguna oo sidii lagu ballamay ee loo jaray oo walibana suldaankii ugu weynaa oo Suldaan Suleymaan ahaa ay ku been fariiman doonaan tolkay markaa way xanaaqeen iyagoo inta u soo maray oo inta haddana u soo maray ballankii ay yimaadeenna loo jaray oo telefoonadii laga qaadi waayay meeshina loo iman waayay way iska shir jiraayid bay qabteen way iska baxeen buuramay ku noqdeen hawshii iyadoo oo sidaa ah bay iyo qoladii oona de salaadiintii la yaqaanay ama oqaashi la yaqaanay aan ahayn oo kuwa dib jiro dariiq iska taagana baa halkii iyaguna waanu jawaabaynaa yiri maartay Safiya tolkii ka socday waxay ku hadleen taataqi iyo matagi uu ku jira media weligii kama baxayade haday ku amaanan yihiin iyo haday ku ceebaysan yihiin bas wax dhaqan Soomaaliya u lahaan jirtay gabadh xil lagu leeyahay oo xila wala reerkan isaaq wan kala guursanaa oo dayada isku taala iyaguna ma guuri karaan anaguna ma guureen ilaahay baa iska baday inaan iyo abtiinay waan isku ahayn aflagaada igama tagayso waxaan maartay waan garnaqsanayaa waxaan u garnaqsanayaa sidii dhaqan laga arki jiray oo walibana ku maartay hadalkii ay tiri Safiya tusmo walaashay qaali halkay kuwaas sida khaldan uga fikrayay sida wanaag ka fikraysa leedahay arrintii in la dejiyo
oo maaragtay la damaso oo aniga magacayga dad ku dhintaan ama dagaal ku dhaco ilaahay baan ka hoos galay farxaano qofkii hadlaya please inuu maaragtay colaad la horiyo ma rabi wixii igaari ya marka wax weeyaan welibana caawa bande waqti baan haystaa waan nila hadlayaa waxaan aad iyo aad iiga xanaajiyey oon ka xanaaqsanahay nin magac isu sheego oo la yidhaahdo dee bini-aadanku waxa weeyaan inuu hadduu samafal samaynayo uu wanaag samaynayo oo maaragtay dhexeeyo noqonayo ama haw damiirkiisu siisan waayey waxaan dhaqan soomaali u lahayn inuu ka diiray inuu maaragtay si anshax leh oo xanaf lahayn inuu u hadlo inuu tolkay oo soomaali halkay ka taagan yihiin iyo magacay ka leeyihiin soomaali wada taqaano oo welibana aan ka soo jeedno fac alla weyn oo ugaasyo intaasoo dhowr iyo 10 ugaas 1500 kun gaaraysa sano isa soo dhaxlayay other empire la yiraahdo google-ka ay ka eegi karaan qofkii jaahili qofkii wax garanayba oo taariikh maaragtay cadceed duur joogta sacab laguma daboolo taariikhda samaroon gadabuursi fanka soomaali ku daadato raggii laga soo gaaray baan ahay oo welibana tusaale ku ah ciyaaraha ay tolkay ciyaaraan hablaha iyaga iyo dumarkaygu ku ciyaaraan aroosyada iyo xafladaha abaayada wacan abaanduulaha abantusiga abanu lahayn abantusigu waa Rwanda iyo Burundi facaas iyo taariikhda ayaan leenahay oo other empire loo dhanay geeska Afrika laga yaqaanay siiba Turkiguna ilaa qaad gaara la siilaa oo imika dib inaan boorka looga tufo maadaama ay Soomaaliya iyo Turkigu walaalo noqdeen ilaahay ka jisaaysiyo bisha Ramadaan waan ducaynaynaa Turkiga sidoo uu garab joogsaday ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo sidoo ciidanka loogu dhisay waanu hambalyeynaa waanu ducaynaynaa marka waxa weeyaan ninka meesha youtuberka lacagta ka sameynaya inuu annaga nagu tuntu yiraahdo isaaqo gadabuursi masaakiin weeyaan had ka adkaateen ina war ana ninka kan caaqan iyo groupkiisu waran bay igu taagan dasa waranka ninka igu nunujiyay igu weewiyayba ayaa ka sii xanuun kul ninkan qof dirtayna ma jiro damiirkiisu hadduu diray inuu aniga igu tunto warde ma alla ma qal mu dadnimo maaha ya waxaan badan gashayna hadday Soomaalinimo tahay inuu anagii daalac noo sii raaco oo dhulka nala dhaco warde ma qaadan karno ninkaasi waxa weeyaan inuu tallaabo weyn dib u qaado ummadda Soomaaliyeed hadduu gaf naga galay Soomaali kale yaanu gaf ka galin habarto anshaxa iyo asluubta iyo dadnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed sida dad loola hadlo aqalkii aabihii mu joogo gurigiisii kama hadlayo beertiisii kama hadlayo ummad Soomaaliyeed oo qowmiyadda Soomaaliyeed mid kamida ayuu la hadlayaa inuu maartay looma ooyaan ka dhigo wardeen uma qalanade namana qabato marka sheekadaan soo noqday ani iyo boqor buurmadow ilaahay jisaaka la khair ilaahay ha ka jisaaysiye iyo Suudaan Saleebaan baa isku xiray sheekadii waxay noqotay Ramadaan baa soo gal waxa la yiri farxaano boqor buurmadow wuxuu yiri baashi waa dabaqday labadii reer isku jawaabeen handajino wasi laga arki jiray anigu markaa inaan imika sida iyagu caaqa u noqdeen ama Amazonian dadka diintu gaadhinay awaanta inaan u hadlo oon aytamo waniyo raggan waan wada dhalanay waan saqabnaa caruurba maaragtay dad asxaab aad iyo aad igu qiimo badan oo hore iyo dambeetaba jira waqti aan soo wada qaadanay nolol aan soo wada qaadanay
dee oo ehel iyo macruufo iyo asxaab aan isku nahay markaa isaaq ma caayo ayna igama geeyaan iyo soomaaloo dhanba dad ceebka saliima oo dhaqan leh oo asluub leh oo soomaali taqaano oo ku faanta baan nahay haybadan lahayn iyo sharaftan lahayn iskama qaadayno sidii la naga filayay la nagu yaqaanay baan u hadlayaa una garnaqsanayaa ya oo macaayo ma dacaydeynayo si xun uma hadlayo haddii kale dacdeer macadayriya shimbirkiisu waxaan noqonayaa un dee nuucooga marka ilaahayga ma dhigin wax badan baan xiirinaya wax badan baan ka dhowrsanayaa marka waxa weeyaan dee calamtarana soo dhaaf weeyaane bahashii caawa waxaan u siixan waayay ilaa shalay aan u soo jeedo inuu gabadhayada diamanta waxa weeyaan dee una geyin ya hawl sidan iminka Nigeria Jamaicanka London waxa habla Soomaaliyeed balanbalay ee lagu sameeyay madiido ama la baabay marka dambe isa soo garta oo maartay waa goor xariir fandaal kala dhaceen ya balanbalaysa London way badan yihiin gabadhani uma qalanto qof ay isku wada jaan qaadi karaan ma ahayn ilaahay baa wax intan ka waday waxa ahayd maartay mucjiso ilaahay ugu dambi dhaafiyay walaashay qaali Safiya Tusno ya marka waxa weeyaan wixii markii laga rugay markii barnaamijka aan waday ee hore oo soola engineerka aan la hadlay bulaacada xirine waqtigu igu adkaa sababtoo ah waxa la doonaya password iyo su'aalo in la weydiiyo Mareykan baan la hadlay waxaan la hadlay Ingiriiska Mareykan baan la hadlay sim card baa la doonay waa la helay waa nacam intuu wax ila maray adoonka ilaahay maartay engineer Abdinaasir Soola ilaahay ka jisaysiyo habeen dhan iyo maalmo seexan hawshii markaa ku guuleysanay boqor burmada waa ka yiri farxaano baashiya sugno sidii baan ku sugaynay hawshii aan sugaynay maslaxada laga taliyo oo iyadiina mar walba ay leedahay aniga in la ii argudo oo xiniyataabad hay noqoto ma doonayo oo magacayga dagaal oo qof ku dhinto ilaahay baa iga sareeyay ma dhisayo walaashay waa afkeey inuu qof ku dhinto ama wuxuu ku gaaro dambiga ana qaba aakhir halkan maraya magaxumadii ama dibtii leegu sameeyay inaan dib dad u geysto gabadh innocent gabadh aan waxba ka ogeyn oo dulmiga iyadu sameeyeen inay tolkay hay dilaan ama nin hay kala dilaan de waxa weeyaan arinteedii baa meesha lagu sii galgalanaya tolkay maartay u shaadhigan walibana walaalkeed harka lagu haya inuu la dhexmaro oo ku alle ku aaqan u arko haw maartay ka talaabsado eese iyada ka hor joogtay oo annaga ka hor joogno oo intii garaad la ka hor joogtay waa nin sidiisa nin walbana gabadh buu la dhashay gabadh buu dhalay gabadh buu qabaa hooyaa dhashay aaqan ama amazonian qoladan maartay diintu wali gaarin bilaa dhaqanka isaaq waxa lagu yaqaan sokiila laha Hargeysa hooyadii fanka iyo dhaqanka marka isaaq dad isqabto oo xishoodo oo milgalaho wax sooro oo wax bixiyo oo dhaqan leeyahayna dhaqan biiskani de wax weyn khudradda kolkay baxdaba badna way uraano maartay way qurmaan badna waa la cunaa oo aadamaha ku nool bil aadankuna waxa weeyaan la isma dhadhamiyay waxa weeyaan barbaa jira qurno sida dadka ugu dhex jira marka de isaaq anu imika jilib sheegi maaye dese waxay baashi way markay ku shareerantay waxay joogtaa maanta isaaq iyo gadabursi waa dhaqan baan lahayn herbeegti baan lahayn bahashi waxa weeyaan waa in la faguraa hanjabaadii iyo lilmadii walaashii ka dhacaysay haddana inuu maanta intuu xabad u qaato uu geysto meel cidla ah oo sidaa yiraahdo
oo baaskoolad madaxa ka saaro imikan ku gogeyno bulaacada ku rid ana meeshan xakuma naya sidoo ula hadlayay qofkii damiir leh ee dadnimo leh ee Soomaaliyeed ee dhaqan leh ee diin leh dhiiga kacaya waxa weeyaan markaa arintu aanadaatay dabadood la qabay tolkay waa dad maxaa ka iman ka fikra inagu kiciyoon ma wax walbana hubsiimo u baahan yahay wax walbana deganaasho ana xalay haddii aninka meel uu ka dhow yahay aan garanayo wallaahi oo billaahi tiirka la saaree wax weeyaan laban kala goyn lahaa dese ilaahay alxamdulilah rabbil caalamiin waa bir ramadaan imika ma xanaaqsani ma cariisni adduunka wax walba oo dhacaanoo muqdisho oon joogaba 800 qof ayaa daqiiqad gudahood nafta ka wada baxday ya waxa weeyaan ilaahay samri iimaanaha naga siiyo iyagana ha u naxariisto shayaadiintii dishana ilaahay maartay shirkooga ilaahayna dhaafiyo ilaahayna naga soo afjaro marka waxa weeyaan de magafa inuu hargeysa ku nool yahay oo ila shabaabku waa kuwa dadka weydilayana nafta ka baxaysa de walaashay inta soo jeer baa la dilay ya oo taas u dambeysay meed maxaa u dambeeyay kaal sii sido waxa weeyaan dawladda Soomaaliland haday la safatay baashi habar sida ninkan de dhulka nala dhacay isaga ilaan baashi sama soo dhaafayo de YouTube-kiisu shilinka yar buu ku eeganaya isaga iyo qaar badan oo kale oo de anan istaahilin inaan magacooganaas halkan ka sheego ama aan ku hadaaqo aan ka hadlo xaraan bay iga tahay marka waxa weeyaan hilibka walaasha eebtada kun ogtay ko looma sheego inay asturaan oo maartay go'a saaraan bay hayda inay YouTube ku kacsadaan oo caaw oo dhan mid kasta oo maartay wax ma garatay hawsa isticmaalo waxa weeyaan waa sabankan iyo dhaqankan laga tagay iyo diracnimadii iyo dahabkii dhaqankii Soomaaliyeed ee isku naxariisanayay diinta lahaa ee asluubta lahaa oo in badan ay ka tagtay ilaahay soo hadiyay waxa weeyaan qolada dhaqanka ee isaaq ninka ragga looga fadhiyo walibana tolkay ma imanaya hargeysa wala burcu tagi wala hargeysa u tagi wala meel bu tagi gobolkooga ha loogu tago oo iyaga dibanayaal ya waxa weeyaan gabadhii waa in magteedii la bixiyo dhiigeegii la bixiyo iyo gefka la galay sidii tolnimo la arki jiray ee dhaqan la arki jiray ay isaaqeedka soo fadhiistaan gogasha dhigaan ka garbaxaan maartay Sheikh Abdullahi Shacali Jawhar waxa weeyaan sheekh albaladkii Soomaaliland ma Soomaaliyeed oo walibana dadkii goobjooga u ahaa maartay udub dhaxaadka raggii taagi magaca ama dawladda sheeganaysiin raggii maartay soo taagay oo maartay goobjooga ahaa oo marxaatiga nool ah xamastiisa waa inanta adeer buu yahay ya in lagaga xishoodo oo la yiraahdo war hawi saaqde hadda taas daba qabtate ila dhaqan baan lahayn sheekh albaladkii ay xurmeynayeen inantiisii suuqa la warwaro oo mid caaqoho diin iyo iimaan lahayn takra labaad isagoo diintii rab ilaahay caayaya buu miiriyaha ku jira ninkani waa horta isagoo waa de wax weyn diintu ka baxay because publicly ay ugu jirtaa isagoo diintii iyo ilaahay caayaya marka waa in horta dib u muslima oo maartay ashhaadada dib loogu qabtaa waa in anaga ninkaasi oo maanta hargeysa tamashlayn oo kolba Facebook iyo kuwa malayacniya halkan sidaa yeelayo ma qabino waan qabayo qabniin iyo waxa telefon ka hadii xabada hadaysatid ama si international waxay ku taalaa Muqdisho xuquuqul insaanka xafiisyadoodu Muqdisho ku taalaa ku yeelan Somaliland
waxaan ka rabnaa sidii ugu dhaqsaha badan leh sharciga inay dabaqaan oo ninkaasi noo laafiyoon Hargeysa dhexdeeda